kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 30 bisha September sanada 2020 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamid ah shir xasaasi oo xalay madaxtooyada ku dhexmaray madaxweyne Farmaajo madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir hadaba maxaa looga hadlay kulankaas oo ahaa mid xasaasi ah halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa beesha Habargidir oo taageertay mid kamid ah musharaxiinta madaxweynaha hadaba waa kee musharaxaasi iyo waliba balanqaadka loo sameeyay oo ahaa mid u suurtagelinaysa inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha 2021 ra'iisul wasaare Roble oo kulan isugu yeeray madaxda laamaha amniga ee dawladda iyo ujeedka laga leeyahay kulankaas ayaan idin la wadaagi doonaa wasiiradii ugu muhiimsanaa xukuumadda qeyre oo xilalkooda weyn doona iyo sababaha keenay hadaba magacyada wasiiradaas ayaan idin soo gudbin doonaa iyo mid kamid ah amiiradii dalalka Khaliijka ugu caansanaa oo geeriyooday intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo fidsan aynu ku bilownay warar aan helina ayaa sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya oo xalay uu ka dhacay kulan u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka ayaa intiisa badan looga hadlay dhismaha guddiga doorashada heer federaal iyo heer dawlad goboleed dhismaha guddiga xalinta khilaafaadka jaangooynta waqtiga doorashada iyo waajibaadka guddiyada la magacaabayo wararka qaar ayaa sheegaya in kulanka la isku fahmi waayay dhowr jeer balse marar badan uu tanaasul u sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo heshiiskii doorashada ee lagu gaaray magaalada Muqdisho ayaa lagu go'aamiyay in la sameeyo guddi wadajir oo ka kala socda federaalka iyo maamul goboleedyada kuwaas oo fuliya heshiisyadii doorashada laga gaaray qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa shalay gelinkii dambe soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana madaxdaasi kamid ahaa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wafdi oo hogaaminaya oo xalay fiidnimadii soo gaaray magaalada Muqdisho caasimada dalka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka socdaalka madaxweynaha ayaa la xiriira shir ay madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka yeelan doonaan magaalada Muqdisho shirarka madaxda ayaa looga arisan doonaa dhameystirka heshiiska doorashooyinka ee dhawaan labada aqal ay ku gaareen ama ay ku saxiixeen magaalada Muqdisho dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay kulan weyn oo beesha Habargidir ay ku taageereysay musharaxnimada hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ah musharaxiinta doorashada soo socotay 2020 ayaa waxaa taageero iyo garab istaag u muujiyay beelaha Habargidir ee uu ka soo jeedo talaabadan ayaa la sheegay in bilow u tahay ololihiisa waxaana lagu tilmaamay taageerada beesha uu ka haysto inay muujinayso in Cabdiraxmaan uu wada dadaalo xoogan oo uu codad ku helayo kulankii lagu taageeray Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa goobjoog ahaa hogaanka sare ee dhaqanka iyo midnimada beelaha Habargidir Professor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac oo ah gudoomiyaha dhaqanka iyo midnimada beelaha Habargidir ayaa ku sugnaa kulanka waxaana Cabdiraxmaan Cabdishakuur u ballan qaadeen garab istaag buuxa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in taageerada ay u dhiganto ama ka weyn tahay midda codadka ee ay xildhibaanada wax dooranayaan bixinayaan waxaan ku dukanay janaasa ghaib wiilashii lagu laayay xarunta xisbiga wadajiraan waxaan ugu dukanay janaasatul ghaib ugu dukanay hoolkan naftiisu ahay maanta 3 sano kadib waxaan u taaganahay in mirahaas oo sabarka iyo dulqaadka iyo say odayaasha sheegeen inaanan falcelis ficil cunfi ah ama violence waxaanay dhahaan ama gacan ka hadala aan lahayn inaan looga jawaabin miraheedii ayaan rabnaa maantaan hoolkan aan u fadhinaa inaan meeshii ka bilaaban lahayd ay noqoto dhammaantiina saan noogu garab siiseen aad nagula shaqaysaan oo aan halkan aan ka duulno aan ka bilowno guushaas sidii miraheeda loo soo dhali lahaa ayaan rabnaa waxaan sugaynay waxay ahayd maalintan oo kale ficilka degdega ah iyo falceliska markaas ku dhisan carada waxaan isaga daynana waxay ahayd inaan maanta oo kale sugno maantana waxaan rabnaa miraheedii dadkiina la guri lahaa oo ehelka u ahaa oo nagu gacan sii lahaa oo haddaan waddada ka leexana la toosi lahaa idinka ayaa ugu dhow uguna horeeya saasaana annaga maanta taladeeda aan u soo celinay meeshaana aan u keennay dadka iyo ehelka iyo asxaabta iyo dadkaba aan u dhex keennay waana ku mahadsantihiin runtii mar kale waa inii mahad celinayaa sidaa arrintaas u aqbasheen waa ogahay waxaa laga yaabaa xildhibaano wax dooran doona inaysan inku badnayn laakiin
waxaan u taagannahay waxay dhahaan waa moral support, taageero niyad ah oo qalbi ah, nafteeda ka xoog badan midda dambe ee codka lagu tirinayo, ayadayna ka bilaabataa, ayadayna ku dhammaataa. marka taageeradaas niyadda ah oona siiseen waa ku mahadsantihiin. guddoonkii golaha sarena waa joogaa, fariintiina waa maqlay. dabcan asaga dee go-aanka ma lehe guddoonka inuu leeyahan u haystaa. odayaashii ka toornaa golahana hadda fariintii waa dhiibeen. insha allah guddoonkoodiina waa sugaynaa hadduu la yidhaahdo. waana mahadsantihiin. qaybaha hore ee wararka Soomaalida ayaa daawanaysaan halkaad nagala socotaana waa shabakada wararka maanta. geeska kalena ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la yeeshay taliyayaasha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo laamaha amniga ee gobolka Banaadir. ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa la sheegay in saraakiisha uu la wadaagay qorshaha xafiiskiisa uga degan dardargelinta sugidda ammaanka, dhamaystirka dib u habeynta ciidamada iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xukuumadda. ra'iisul wasaare Roble ayaa u soo bandhigay taliyayaasha ciidamada ee uu la kulmay mudnaanta uu siinayo xasilinta amniga guud ee dalka iyo xoojinta wada shaqeynta hay'adaha amniga ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu yiri qoraalkaasi. Roble ayaa laamaha amniga xusuusiyay waajibaadka ka saaran ilaalinta nabadgelyada iyo fududeynta dhaqdhaqaaqa bulshada, isagoona faray inay sii xoojiyaan dadaalada lagu xaqiijinayo xasilinta caasimadda Muqdisho. waxaa idinku adkeynaya inay sii laabtaan hawshii wanaagsaneed ee aad horey u soo wadeen, lana timaadaan dadaal dheeri oo aad si buuxda ugu fulinaysaan qorshaha amni ee xilligani doorashada, ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble. kulankaas ayaa waxaa ka qayb galay sihayaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay ku jiraan xubno ka socday guddiga amniga, kuwaas oo ballan qaaday inay sii dardargelin doonaan qorshahooda ku aadan amniga iyo la dagaalanka waxa lagu yiri argagixisada. gabagabadii wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdilaahi Sheekh Xaamud ayaa akhriyay warbixin ku saabsan waxyaabaha looga hadlay kulankaasi. intaynu aadin mid ka mid ah amiiradii dalalka khaliijka carabta oo geeriyooday, balse markan aynu ka hormarino. iyadoo lagu guda jira dhismaha golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya xog ku saabsan wasiirada aan rajada ka lahayn inay dib u soo laabtaan iyo kuwa ay caddahay inay kasoo muuqan doonaan goobaha golaha wasiirada ee uu soo dhisi doono ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. wasiirada isla markiiba ay xaqiiqda tahay inay waayi doonaan xilalkooda aan rajo ka qabin inay ka mid noqdaan xukuumadda ra'iisul wasaare Roble. waxaa ka mid ah wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow, wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Canshuur iyo kuwa kale. saddexdan wasiir waxay saaxiibo dhow la ahaayeen oo ay eersanayeen ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, laakiin wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye waxaa isaga uu heliyay inuu ku baxayo awood qaybsi qabiil mar haddii uu ra'iisul wasaare noqday mas'uul ka soo jeeda beeshiisa, waxaanay beeshaasi hadda yeelan doontaa wasiir aan ahayn jagooyinka waaweyn. wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ka mid ah wasiirada aan dhicintan iyo markii xukuumadda Khayre la dhisay, wuxuu ilaa daqiiqadii ugu dambeysay difaacay saaxiibkiisa, waxaana cad inuusan kasoo muuqan doonin xukuumadda cusub, iyadoo madaxweyne Farmaajo uu bedelkiisa doorbidaya maareeyihii hore dekedda magaalada Muqdisho Cabdi Jiinow iyo sihayaha wasaaradda ganacsiga ee uu mar waraysi uga qaaday xilka ra'iisul wasaaraha. Cabdilaahi Cali Xasan waxaa caqabad ku noqon doonta xiriirka hoose ee Villa Soomaaliya la wada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo yeelan doonaan isbahaysi yareyn kara fursadaha doorashada musharax Xasan Cali Khayre, taasoo Farmaajo u jehin doonta dhinaca kale. wasiirka boostada iyo isgaarsiinta injineer Cabdi Canshuur Xasan, inkastoo uu yahay nin quyar socod, wuxuu saaxiibtinimadiisa Khayre ku dhex waday xiriir fiican oo madaxweyne Farmaajo uu la leeyahay. haddii uu sidaasi xilka ku waayana waxay caddeynta heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka kala geeyay saaxiibadii hore Farmaajo iyo Khayre. wasiirada kale ee cabsida ka qaba inaysan kasoo muuqin golaha wasiirada cusub waxaa ka mid ahi wasiirka diinta iyo awqaafta, wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka, wasiirka caafimaadka iyo kuwa kale oo badan. ugu dambeyntiina amiirkii muddada dheer xukumayay dalka Kuwait Sheekh Sabax Al-Ahmed Al-Sabax ayaa geeriyooday isagoo 90 sano jira, waxaana sidaas sheegay telefishinka dowladda. iyadoo murugo weyn ay tahay waxaan la tiraayoonayna dhimashada Sheekh Sabax Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabax. amiirkii dalka Kuwait waxaa sidaas yiri Sheekh Cali Jarax Al-Sabax oo ah wasiirka arrimaha boqortooyada oo la hadlay telefishinka dowladda.
Sheekh Sabax ayaa waxaa lagu xasuusan doonaa diblomaasiyadda siyaasadda bariga dhexe uu isku dayay inuu ku xaliyo khilaafka u dhexeeya Qatar iyo dowlado kale oo Carbeed oo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Sheekh Sabax ayaa waxaa lagu wadaa inuu bedelo walaalkiis ahna dhaxal sugaha Sheekh Nafaab Al Ahmed As-Sabax. Sheekh Sabax ayaa 91 sano jir ah waxaa la keenay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Rochester ee gobolka Minnesota bishii July kadib markii mas'uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen inuu xanuunsanayo. Ka hor intuusan noqonin amiirka waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi muddo ka badan 40 sano. Guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino. Waana mahadsantiin.